بسم الله السلام عليكم سؤالشان ساعتي قاعد حرجنا في عتين سو هذا كسو هذا فيديو هنا مانتا سبسكرايب صار لايك صار فيديو شير جري وحين عاونا ساينا si fudud u korno thank you go'aan kayga dhisida SG community bilowga hayaankeena ma ogtahay saaxiib waxa uu dhibka badan maanta inaad haysato karti aqoon awood iyo riyooyin waaweyn laakiin aad ku dhex jirtid markasta jawi kugu dhiirigelinaya kaliya inaad isdhiibto ama aad waqtigaada iska disho ood ku qasaariso Soomaaliya yani maanta kuma tusayo kaliya muuqaal dhiirigelin caadi ah ee waxaan kula wadaagayaa go'aankii bedelay noloshayda iyo sida isbedel kugu noqon karo adiga kani waa bilowga hayaankeena ku soo dhawaada fiidiyogeena maanta habeenada kamid ah ayaa waxa aan isweydiiyay haddii aad maanta dunida ka tagto maxaa ku haraya waxa aan ogaaday magaca lacagta iyo sumcadu dhammaantood inay baaba'ayaan oo dhamaanayaan laakiin dadka aad dhisatay bulshada aad qayb ka noqotay iyo qofka aad saameynta ku yeelatay ay yihiin waxa dhab ahaantii waaraya oo ka haraya waxaa jira oo maalin kasta aragnaa dhibaatooyinka dhallinyaradeena jahwareerka nolosha shaqo la'aanta qalbi jabka burburka qoysaska jilcanaanta iyo luminta qiyamka laakiin maanta ma rabno inaan ka hadalno dhibaatooyinka sababtoo ah dhibaatooyinka qof walba uu ogyahay oo aad ka dharagsantiin dhammaantiin laakiinse waxaan doonaynaa maanta inaan ka hadalno xalka maxaa xal ah maxaa inala gudboon waxaan rabaa inaan idinla wadaago go'aankii ugu weynaa noloshayda dhisidda SG community tani ma ahan kaliya YouTube channel ama meel loogu imaado kaliya daawasho ama dhiirigelin waxayaan loogu talagalay in lagu dhiso jiilka berito hogaamin doona dalkeena iyo ummadeena lagu badbaadiyo mustaqbalkooda iyo jiritaankooda waxaa jiray habeen kaleeta kaasoo aniga aan magaalada soconayay waxaan eegay saaxiibadeeda iyo dhallinyarada maanta kuwaasoo ku foorara taleefanadooda waqtigooda luminaya fadhi ku dirir iyo hadalla maalayacni ah waqtigooda ku qasaaranaya kuna luminaya waqtiyadoodii dahabiga ahaa ee dhallinyarnimadooda iyo mustaqbalka aanan la hubin ee jiilkeena soo socda waxaan isweydiiyey ma hadal sheeko fadhi ku dirir iyo waqti lumis unbaa noo haray maxaa ku dhacay jiilkeena waxaan dareemay culays aad u weyn oo naftayda ah waxaan dareemay inay mas'uuliyad isaaran tahay waxaan dareemay inaan wax isku dayi karo oo aan tallaabo qaadi karo sababtoo ah haddii aan sidaan ku socno jiilkeena soo socda iyo mustaqbalkeenaba god madow ayaa u dambeynaya sidaas awgeed ilaahay ayaa wuxuu leeyahay in allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim bal ka waran go'aanka ugu horeeya iyo tallaabada ugu horeysa haddaan anigu aan qaado oon wax isku dayo laga yaabay inaan guulaysto laga yaabay inaan wax bedelo ma dhici doontaa talow ma ogi waxaan ogaaday haddii aanan anigu aan bilaabin badbaadinta masiirka jiilkeena iyo mustaqbalkeena aysan jirin cid noo imaanaysa oo ina badbaadinaysa qof kastow naftaada iyo masiirkaaga mustaqbalkaaga adiga ayaa mas-uulka ah cid kuu soo socotana ma lahan cid ku badbaadinaysana ma jirto waqtigaaga lumisida ama iska daysida noloshaada ayay ka go'an tahay habeenkaas ayaan gaaray go'aankii ugu weynaa noloshayda oo ah inaan aasaaso community dhalinyaro ah kuwaas oo nagu macdaray SG community surprise generation ma ahayn magac oo keliya waxay ahayd ballan aan naftayda la galay iyo jiilka Soomaaliyeed ee raba inay dunida ka yaabiyaan naftooda hagaan noloshoodana wax u qabsadaan hayaanka dhisida communitieska ee dunida wuxuu soo maray marxalado kala duwan laakiin dhexdeena Soomaalideena wuxuu dhab ahaantii xoogaystay sanadihii dambe markii ay dhalinyaradu ogaadeen oo ay fahmeen ay goos dambeedka ku qabsadeen isku filnaansho dhaqaale iyo mid nololeed go'aanka lagu dhisayo dalad ama bulsho dhalinyaro ah community oo madax banaan ma ahan arrin ku saabsan abaabulka baraha bulshada waa kacdoon maskaxeed kaasoo dhalinyarada ku hogaaminaya ku tiirsanaanta social media iyo noloshan dhalanteedka ah kuna hogaaminaya iftiinka mas'uuliyadda dhibteeda iyo dheefteedaba go'aankayga dhisida SG community kuma dhisna aragtiyo dhalanteed ah wuxuu xididadiisa ay ku leeyihiin diinteena suuban alle salawaatu llaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay in allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim anagoona nafteena bedelin maskaxdeena bedelin fikirkeena bedelin nolosheena isbedeli mayso aayaddani waa sharciga dhabta ah ee isbedelka ilaahay qoomna ma bedelo xaaladooda ilaa ay iyagu bedelaan wax naftooda ka ahaaday waa inaan gudaheena ka aqoonsanaa isbedelka maskax ahaan u aaminaa aan ku dhaqaaqnaa ilaahayna aan tala saaranaa dhisidda bulshadani iyo communitygan waxaan u adeegsanaynaa dhisidda caadooyinka wanaagsan ee muslimiinta iyo akhlaaqda nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee sallallahu alayhi wasallam kow wadatashiga iyo iskaashiga shura inaan gacmaha isqabsano oon talada wadaagno isdhirino iskaalmayno iscaawino labo inaan u samayno wanaag walaalaheena asxaabteena iyo familkeena wanaagga aan faafino inaad walaalkaaga la rabto familkaaga la rabto horumarka aad la rabtid naftaada wanaagga ayaa ina deeqa saddex niyad samaanta xusnu dhan
inaan dhalinyarada kale ku dhiirigelino kalsooni iyo niyad dhis. xog la aruuriyay dhamaadkii 2025 ayaa muujinaysa in dhalinyarada ka soo qalan jabisay jaamacadaha Soomaaliyeed ay la kulmaan jahwareer nololeed, jiho la'aan, wareer, iska dawareeg, niyad jab iyo stress aan dhammaad lahayn sanooyinka ugu horeeya ee noloshooda. laakiin daraasaadku waxay muujinaysaa oo ay caddaynaysaa in dhalinyarada ku biiray bulshooyin communities leh hadaf dhab ah, ujeedo gaar ah, iskaalmeyn oo is caawinaya ay 45% ay ka dhow yihiin inay helaan fursado shaqo, caawimaad dhalinyaro iyo iskaalmeyn bulsho si ay u helaan fursado nololeed iyo deganaansho maskaxeed oo ay uga baxaan jahwareerka iyo jahil-la'aanta nololeed. haddaba maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aan u dhisay SG Community? waa maxay waxa aan u bixinay bilowga hayaankeena? safarkeena muxuu ku dhisan yahay? hadafkeena soo muxuu yahay? waxaan rabnaa inaan dhisno 4 waxyaabood oo dhalinyaro kasta ka dhiga mid guuleysta. qodobka koowaad, qiyam toosan. ma jiro isbeddel dhab ah haddii aysan jirin isbeddel diini ah iyo mid akhlaaqi ah. qofka ka tirsan SG Community oo qof runta jecel, ballanta oofiya, qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisana ay toosan yihiin. qodobka labaad, maskax dhisan. waxaan ka dagaalamaynaa caajiska maskaxda. waxaan dhisaynaa bulsho maskax furan, baranaya xirfadaha casriga ah, waaqicooda la jaanqaadaya, aaminsan in laga bixi karo marxaladahan saboolnimada ah iyo burburka nololeed iyo daleed. qodobka saddexaad, akhlaaq buuxda. muslimnimada iyo raganimada lagu sheegayo waa akhlaaq. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi innamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq. akhlaaq dhab ah, suuban oo dhammaystiran. inaad ixtiraamto waalidkaaga, caawiso dadkaaga, qoyskaaga iyo bulshadaada. aad noqotid qof dhowrsan oo ixtiraam badan, leh akhlaaq buuxda oo dhammaystiran. qodobka afraad, muuqaal soo jiidasho leh. muuqaalku waa shayga ugu muhiimsan ee qofka shakhsiyadiisa. muuqaalkaagu waa barankaaga, nadaafadaada, lebiskaaga iyo body language-kaaga waxay ka tarjumayaan shakhsiyadaada iyo qofka aad tahay. faa'iidooyinka iyo caqabadaha SG Community. waxaad helaysaa jawi ama space dadka ku jira ay wada leeyihiin hal hadaf, jihayn dhab ah iyo tababaro maskaxeed, kordhinta kalsoonida nafta iyo xirfadaha hoggaanka, naf dhisan iyo nolol horumarsan. waxaad ka fogaanaysaa dadkii aad iska lumi jirteen waqtiga. waxaad qaadanaysaa mas'uuliyadda naftaada 100%. bilowga ugu horeeya aad buu u adkaan doonaa, waxaad noqon doontaa qof keliya. waxaad ka baxaysaa nolosha dhalanteedka ah, waxaad la noolaanaysaa xaqiiqadaada iyo dhabtaada. waxaad noqonaysaa qof leh go'aankiisa, mustaqbalkiisa gacantiisa ku jiro, noloshiisana hagaya. weliba anagoo iscaawinayna, iskaalmaynayna oo isdhiirgelinayna anagoo wada jir ah. go'aankayga dhisida SG Community ma ahan mid aan maanta un gaaray. markii fikirkii ugu dhashay waxaan sameeyey ukurgalis iyo cilmi baaris waaqica dhallinyaradeena. tallaabada koowaad waa midnimada maskaxda, in aan maskaxaan u midowno oo ujeedada iyo hadafkeenan uu yahay hal mid. laga bilaabo maanta waxaan bilaabaynaa inaan dhisno system kaasoo qofka dhallinyarada ka caawinaya inuu ka baxo gudcurka jahwareerka una gudbo dhisida hadafyo cad. ma rabno keliya dad doonaya raaxada, ee waxaan rabnaa dad hayaanka ku bixinaya dadaal, dhidid iyo rafaad si ay ugu guulaystaan ay ugu gaaraan hadafkooda. midda koowaad, aqbal go'aanka. ma u diyaarsan tahay inaad ku soo biirtid community-ga oo go'aankaasi ma aqbashay oo ma kaa dhaadhacay? 2, dhis qorshe maalinle ah. ha noqonin qof dabayl raacday. u nolow noloshaada, ku nolow xaqiiqadaada. maalin kasta noloshaada ku nolow, la nolow waaqicaaga. qodobka saddexaad, nagu soo bir SG Community si aad u heshid hagidda koowaad ee safarkaaga. saaxiib, waan ogahay mararka qaar waxa aad dareemaysaa inaad cidlo tahay, cid ku fahmaysa aysan jirin. waxaad dareemaysaa in riyooyinkaaga aysan jirin cid fahmaysa, ayna ka weyihiin dunida aad ku nooshahay. waxaan ku leeyahay keligaa ma tihid. qof kastoo noocaagi oo kale hoygiisu waa halkan. SG Community waa hoyga dadka la fahmi waayey, riyooyinkooga ay ka weyihiin maskaxdooda iyo deegaankooga iyo dunidooda. waa meesha aad ku dhisan lahayd qofka aad rabtid inaad noqotid. tallaabada ugu horeysa ee aan ku dhisay community-gan waxaan u qaaday adiga dartaada, inaad riyadaada dhisatid, mustaqbalkaaga dhisatid iyo qof kastoo adigoo kale ah, si aanan maalin un uga qoomameynin fursadaha aan maanta aan haysano, oonan uga shalaynin, uga badbaadno shalaytada beri, aan la noolanno nolosheena. maanta waa bilowga hayaankeena. nagu soo bir oo ha siigin, nala kor, nala hormar insha Allah. sidee adiguna aad u bilaabi kartaa hayaankan maanta? waxaan kula wadaagay 4 tallaabo oo ficil ah. tallaabada koowaad, go'aanso isbeddelka. weydii naftaada, ma waxaad rabtaa inaad noqotid qof iska dhashay, iska noolaaday kadibna iska dhintay, mise waxaad rabtaa inaad raad reebto oo dunida saameyn ku yeelato? qaado go'aankaaga hadda. tallaabada labaad, sameey hiigsi cad. qor 3 waxyaabood oo aad rabtid noloshaada inaad ka bedeshid 6 bilood ee soo socota, dhanka maskaxda, jirka, dhaqaalaha iyo aqoon ahaanba. tallaabada saddexaad, sifee deegaankaaga.
haddii bulshada aad ku dhex jirtid aysan ka hadlin mustaqbal horumar hiigsi iyo wax qabsiga noloshooda ka dhex bax raadi bulsho u qalanta riyadaada iyo hiigsigaaga qodobka afraad ku soo bir hayaanka SG community nagu soo bir si aad u heshid gaashaan iyo garab SG community wadajir aan wada guulaysano insha Allah saaxiib ma ogtahay waqtigaagu uu yahay hantida ugu qaalisan ee aad maanta aad haysato maalin kasta oo ku dhaafta adigoo isdhiibaya ama waqtigaaga dhuminaya waxaad dib u dhigaysaa farxaddii hooyadaada iyo aabahaaga midda xaaskaaga mustaqbalka iyo carruurtaada go'aanka aan u qaatay inaan dhiso SG community ma ahan keliya mid anigu keliya igu kooban wuxuu ahaa mid aan anigu isku badbaadinayo adigu kugu badbaadinayo jiilkeena aan ku badbaadinayno si wada jir ah ha ogolaanin in caajisku ku dilo ha aqbalin dhalanteedka ka bax jahwareerka nolosha gacanta ku dhig noloshaada naftaada dhis noloshaadana horumarso waxaad tahay wiil Soomaaliyeed oo leh dhiig karti dhiiranaan oo qof kasta uu ku guulaysan karo caadi ma tihid ee aamin midaas kac oo muuji raganimada dhabta ah hayaankeena hadda ayuu bilow yahay safarkan hadda ayuu bilowday ha ka harin oo nala soco waxaan u soconaa wax weyn haddii aad rabtid noloshaada inaad u horumarisid qiyam toosan maskax dhisan akhlaaq buuxda iyo muuqaal soo jiidasho leh nagu soo bir oo ha seegin fursaddan albaabkaagu waa SG community ku soo dhow halkan ku soo dhow deegaankeena anagu halkan uma joogno kaliya inaan hadal ku siino waxaan u joognaa inaan si dhab ahaan u noolaano dhabteena wajahno xaqiiqadeena aan la noolaano nafteena aan wax ka bedelno nolosheennana aan horumarino insha Allah aan ficil wada sameyno aan wada horumarno aan isdhiirino aan iskaalmayno insha Allah subscribe sar oo ku soo bir jiilkan si wada jir aan wada korno aan wada horumarno insha Allah su'aasheeda ugu dambaysa haddii aadan maanta qaadanin go'aankii uu bedeli lahayd noloshaada yaad ka sugaysaa inuu noloshaada badbaadiyo aad iyo aad baad u mahadsantiin astaantayda qaaliga waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysteen waxaan rajaynayaa inaad ku soo biiraysaan hayaankan safarkan waxaan rajaynayaa hadafkeena iyo ujeedada aan leenahay inaan gaarno insha Allah aan dadaalno rabbina aan tala saarano waan guulaysan karnaa insha Allah ku soo bir community-gan una shargalay qof kasta oo adiga kula mid ah halkani waa hoyga dhalinyarada waa hoyga jiilka mustaqbalka insha Allah guulaystayaasha beri waxaan noo balana videogan insha Allah aseegina jiilkan waa jiil dahabi ah hayaankuna waa hadda bilow oo kaliya soo marka dhuqsada safarka hadda ayuu bilaabay kulanti dambe oo xiiso leh maca salaam